maayarka degmada Ceerigaabo mudane Ismaaciil Xaaji Nuur oo ay weheliyaan isuduwaha wasaaradda biyaha gobolka Sanaag qaar ka mid ah xildhibaanada golaha deegaanka wakaalada biyaha degmada Ceerigaabo iyo xoghayaha fulinta degmada ayaa kulan ay ku yeesheen xarunta dawladda hoose waxay halka ka sheegeen qiimo dhimis ballaaran oo lagu sameeyay biyaha degmada Ceerigaabo waxaana ugu horeyn halkaasi ka hadlay isuduwaha wasaaradda biyaha gobolka Sanaag maareeyaha wakaalada biyaha degmada Ceerigaabo iyo qaar ka mid ah xildhibaanada golaha deegaanka maanta waxaanu insha Allah taala rajeynayna in bulshada aanu farxad u gudbino ay ka mid tahay in cayaalasha booyaduhu markii hore kaga soo qaadan jireen qiime iyaguna ay qiime ku iibin jireen booyaduhu waxay aanu rajeynayna insha Allah taala inay bulshadoodana iyaguna sida qorshaha aan ugu talagalnay inay u dhimaan qiimaha cayaalasha oo wakaaladuna ay qiimo macquul ah ay ku qancaan iyagana ay ugu dhimeen waxaanu maanta sameynay qorshe ah qiimo dhimis hore waxa loo dhimay mataqaanaa wakaalada biyuhu dhintay mid kuubkii mataqaanaa lacag laga riday maantana waxaanu sameynay mataqaanaa booyadaha maadaama ay magaalada u dhaamiyaan booyaduhu oo ay mataqaanaa dadaal badan u sameeyaan waxaanu isu sheegaynaa dadka magaalada ku nool degmada Ceerigaabo iyo agagaarkeeda waan fariin u dirayaa inay maadaama aanu biyihii jabinay inay lacagta si wanaagsan u soo bixiyaan oo degdega maadaama aanu idin jabinay waxaanu idinka codsanaynaa in lacagta si hufan isaga soo bixisaan wax badan baad nacanaanayseen wax badan baad hadal wadeen waxa weeye horumarka in lala socdo haddaad tihiin dadka degmada degan ayaa fiican waad ogtihiin wax badan baa la sameeyay horumarkii u dambeeyay maanta iyo farxadii u dambeysay wax weeye iyadoo leedkii jaban yahay biyihii in la idin jabiyay ku bishaaraysta maayarka degmada Ceerigaabo Ismaaciil Xaaji Nuur oo gabagabadii kulankaasi ka hadlay ayaa si toos ah ugu dhawaaqay qiimaha bulshada Ceerigaabo booyadaha u dhaamiya ay ka siin doonaan waxaan isugu nimi shir sidii madaxdii hore sheegtay madaxdii ka socotay wasaaradda horumarinta biyaha wakaalada xildhibaanada maamulka dawladda hoose shir baanu isugu nimi saa laydin sheegay waxaanu ka shiraynay maslaxad ummadda wax tarta oo anfacda ilaahayna waxaanu ka baryaynaa inuu nala qabto sidaa laydin sheegay biyaha wakaaladda horumarinta biyaha degmadu waxay siin jirtay hoostada 3,500 mitir kuubkana waxay siin jirtay booyadaha 13,500 oo laana shirkan maanta isugu nimi waxaanu isla garanay in laga siiyo mitir kuubka 12,500 foostadiina ku astaysan tahay 2,500 oo laana booyaduhu inay siiyaan foostada 8,000 oo shilin oo laana halkaa markaan sii sharxo ceelasha ay ka dhaaminayaan iyo suuqa waxaa u dhaxeeya 1 kilomitir oo laamiya 1 kilomitir oo laamiya ayay u jiraan ceelka ugu dhow ee ay ka dhaamiyaan booyadu waa meel u dhow suuqii waana laami inta badan inta kalena master balaankii baa maray oo waanu banaynay dhammaan istiraydhada waanuna garaacnay waanuna banaynay sidaa darteed waa in loo la taxgeliyo oo la qiimeeyo ummadda shacbiga ee magaalada ku nool iyo dantooda go-aankii soo baxay wuxuu noqday in laga iibiyo oo wakaaladdu ka siiso foostada 2,500 oo laana shacbigana laga siiyo 8,000 oo shilin Somaliland halkaa waxaanu caddaynaynaa maanta qiimahan marka kii hore aanu sheegnay kan dambena aanu sheegnay inaanu ka jabannahay dalka oo dhan ilaahay baan ugu mahadnaqaynaa arrintaa maanta go-aanka lagu gaadhay golaha deegaanka howlwadeennada degmada wakaaladda horumarinta biyaha wasaaradda waa go-aan sharci ah ciddii fulin weyda oo hawshaasi ay noqon weydo inay sidaa u daayaan booyadii diidda arrimaha wax la marinayaa eedaha sharciga waxaanu u sheegaynaa ciidamada qalabka sida gaaraan ciidanka booliiska ciddii shacbiga ka soo cawdo oo 8,000 ka badisa in la qabto laga bilaabo maanta berrito go-aanka maanta naga soo baxay oo berri la isticmaalayo go-aanka iyagii wakaa shacbigana waxaanu ugu bishaareedeynaa
in qiimihii nalkuna jabay biyihiina jabeen haddaba horumar hanu dhaqaaqno oo iyoynaan meesha fadhiine annaguna hawlo kalenu bilaabaynaye nala bilaaba oo laamiye ka mid yihiin waa cabdirasaaq xaaji axmed warbaahinta qaranka Soomaaliya.